ku soo dhowow Somali Magazine qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah ruushka oo markii ugu horreysay shaaciyay inuu xal ugu helay dhibaatada ka haysatay diyaaradaha droniska ee dalka Turkiga. Tijaabada diyaaradaha droniska ee ruushka ay sameeyeen iyo awoodda ay u leeyihiin inay soo ridaan diyaaradda Bayraktar TB2 ee dalka Turkiga. waa samaxay calooshood u shaqaystayaasha raashka uu ku daadguraynaya gudaha dalkaasi Maali maxayse tahay arrinta walaaca xoogan ku abuuraysa Mareykanka ee ku saabsan howlgallada diyaaradaha droniska Turkiga ee gudaha Itoobiya. dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday inay ku guulaysatay tijaabinta mid ka mid ah diyaaradaha droniska ee cusub. diyaaraddaasi oo loogu magacdaray Orion ayaa waxaa la sheegay inay tahay mid shabahda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Mareykanka. balse waxaa dowladda raashka ee shaacay ka qaaday in diyaaraddaani awooddeeda ay aad ay uga badan tahay kuwa ay farsameeyaan Mareykanka. tijaabadii ugu horreysay ee lagu sameeyey diyaaraddaani dronista ayaa la sheegay inay ku guulaysatay soo rididda mid ka mid ah diyaaradihii droniska ay adeegsanayeen ciidamada ammaanka ee dowladda Ukraine. lama sheegin nooca diyaaraddaasi ay tahay, laakiin ruushka wuxuu si adag kaga walaacsan yahay diyaaradaha droniska ee Turkiga uu geeya gudaha dalkaasi Ukraine, gaar ahaana Bayraktar TB2 oo muddo sanad iyo bar ku dhow ay adeegsanayaan ciidamada ammaanka ee dowladda Ukraine. intaasi kadib qobarradu waxay shaaci ka qaadeen diyaaradda Orion inay ku tilmaami karayaan mashiinka dilaaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gaar ahaana kuwa ka dhuuman kara raadeerada. dowladda Turkiga diyaaraddeeda ayaana si weyn loogu yaqaanaa inay ka mid tahay kuwa ka dhunta raadeerka. sida laga soo xigtay warbaahinta ruushka, xawaaraha ugu sarreeya ee diyaaradda Orion waxay noqon kartaa ilaa 200 kilomitir saacaddii. diyaaraddaani aan duuliyaha lahayn waxaa soo saaray shirkadda Kronstadt oo laga leeyahay gudaha dalka Raashka. duulimaadkii ugu horreeyey waxaa diyaaraddaani ay samaysay 2016, balse tijaabadii ugu dambeysay ayay iminka ka baxaysaa, waxaana si rasmi ah 2020 loogu wareejiyey ciidamada ammaanka ee dowladda ruushka. ruushka ilaa iminka waxa uu soo saaray 30 unug oo ka mid ah diyaaraddan. sidoo kale diyaaraddan waxay awoodda u leedahay inay jarto masaafo gaaraysa 250 kilomitir. markii ay diyaaraddan hawada ka baxdo waxay hawada ku duuli karaysaa 24 saac. waxaana lagu warramayaa nooc ka mid a diyaaraddaani ruushka inuu u isticmaalay dagaaladii Suuriya iyo gobolka Kremiya 2014. wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa dhowaan soo bandhigtay muuqaalka tijaabada diyaaraddan. fiidiyogan waxaa markii ugu horreysay isagoo qaab dukumeentari ah laga sii daayay kanaalka TV-ga ee dowladda Raashka ee Russia 1. intii lagu guda jiray tijaabada diyaaradda Orion waxa ay riday gantaal nooc cusub ah oo loo yaqaano 9M113 si uu u burburiyo diyaarad dronis ah. warbixintu waxa ay sheegtay in diyaaradda Orion ay aqoonsatay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee cadowga, iyadoo ka aqoonsatay meel qiyaastii u jirta 96 kilomitir. markii diyaaraddaasi ay soo gaartay masaafo dhan 4 kilomitir, Orion waxay riday mid ka mid ah gantaalkii soo riday diyaaradda. sidoo kale diyaaraddan waxay awood u leedahay oo ku rakiban raadeer, waxaanay weerari karaysaa bartilmaameedyada dhulka iyada oo loo adeegsanaya gantaalada la hagayo. gabagabadii ruushka ayaa isu diyaarinaya duulaanka raashka ee uu doonayo inuu ku qaado dalka Ukraine, waxaana walwal iyo walaac xoogan uu ka dhashay mushkiladaha diyaaradaha droniska ee dalka Turkiga uu farsameeyo. maadaama ruushka uu si weyn u arrintaasi uu kaga walaacsan yahay, wuxuu ku fikiray inuu la yimaado kuwii ka hortegi lahaa. diyaaradda Bayraktar TB2 waxaa lagu wareejiyey ciidamada ammaanka ee dalka Ukraine, balse hadda waxay u muuqataa ruushka in dhibaatadaasi xalkama dambaysa uu helay, waana diyaaradda Orion taasi oo durbaba ku guulaysatay inay soo riddo diyaaradaha droniska ee ka howlgalaya gobolka. ma jirta ilaa iminka wax war oo ka soo baxay dhanka dalka Turkiga oo ku aadan in diyaaradooda Bayraktar TB2 awood loo yeeshay in la soo rido, iyada oo diyaaraddan la sheegay in wacdaro xoogan ay ka dhigtay dagaalada ka soconaya Itoobiya oo dhanka kale ay u rogtay kuwii ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh, kuwii Syria iyo sidoo kale dalka Liibyaba. qaybta hoose aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsan tahay. markaana haddii aan eegno, Faransiiska iyo 15 dal oo xulafadiisa ah oo ku yaala Yurub iyo Kanada ayaa cambaareeyay waxay ugu yeereen ciidamada calooshood u shaqaystayaasha Raashiyaanka oo raashka ay ku daadguraynaysa gudaha dalka Maali. waxay sheegeen in arrintaani ay kasii dari karaysa xaaladda ammaan ee galbeedka qaaradda Afrika oo la daala dhacaya kooxay ku tilmaameen inay jihaadoon ay yihiin. dalalka galbeedka ayaa dowladda raashka ku eedeeyay inay gacan ka geysatay calooshood u shaqaystayaasha Wagner ee la geeya gudaha dalka Maali. ruushka waxa uu beeniyay in dowladda wax xiriir ay la leedahay shirkaddaani militari ee sida gaarka loo leeyahay. midowga Yurub ayaa dhowaan cunaqabateena ku soo rogay kooxda Wagner, iyagoo ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin tacadiyo baahsan oo xuquuqda bini'aadamka ah. kooxdan qarsoodiga ayaa markii ugu horreysay la ogaaday 2014 markaas oo ay taageereen gooni u goosadka Raashiyaanka taageersan yahay ee qaybta ka ah dagaalka ka dhacaya bariga dalka Ukraine. tani markaasina waxay ka howlgali jireen dalal badan oo ay ka mid yihiin Suuriya, Mozambique, Suudaan, Liibiya iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe.
warbixin maalintii shalay ay soo saareen ayaa dalalka reer galbeedku waxay uga digeen kooxdan in la geeyo gudaha dalka maali, taasi oo horseedi karaysa inay ka sii darta xaaladda xuquuqda bini'aadanimo ee dalka maali, ayna carqaladaynayso heshiiska nabadeed ee ka socda dalkaasi oo dagaalada sokeeye ay halakeeyeen. waxaa sidoo kale ay sheegeen inay aad ugu xuyeen in dowladda maali ay door bido in lacagaha dadweynaha ee markoodii horeba yaraa ay u adeegsadaan inay ku bixiyaan lacagta calooshood u shaqaystayaasha ah beddelkii ay ku taageeri lahaayeen ciidamada dowladda maali. faransiiska ayaa walaac xoogan ka muujinaya arrintan. war-saxaafadeed si wadajir ay u soo saareen dalalka Biljamka, Canada, Jamhuuriyadda Czech, Denmark, Estonia, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Lithuania, Netherland, Norway, Portugal, Romania, Sweden iyo Ingiriiska ayaana arrintaasi looga digay. faransiiska hore u gumaysta maali ayaa dhowaan ciidamadiisa kala baxay saldhigii ugu dambeeyey oo ay ka joogeen waqooyiga dalka maali, taan oo qayb ka ah sida la sheegay qorshe ballaaran oo ciidamadiisa la dagaalamaya kooxaha islaamiyiinta uu kala baxayo gobolka saaxil. maali ayaa ilaa iminka wax jawaaba ka soo bixin kooxda Wagner oo heshiis la sheegay inay la galeen mas-uuliyiinta dowladda maali. markaana haddii aan eegno, mas-uuliyiinta dalka Maraykanka ayaa su'aal waxay ka keenayaan diyaaradaha droniska ee dalka Turkiga, gaar ahaana kuwa laga iibinaya Ethiopia oo dhinaca kale u rogay dagaalada halkaasi ka dhacaya, iyada oo laba ila wareed oo arrintaani la socday ay sheegeen inay jiraan caddaymo muujinaya in dowladda hubkaasi u adeegsatay la dagaalanka fallaagada Tigreega. Washington waxay aad uga walaacsan tahay dhibaatada bini'aadamnimo ee ka dhalan karta hubka diyaaradaha Turkiga uu ka iibinayo dowladda Ethiopia, ayaa lagu yiri qoraalka. saddexdii maalin ee ugu dambeysana Washington si weyn ayay kaga hadlaysaa diyaaradaha droniska ee dhinaca kale u rogay howlgallada ka dhacaya waqooyiga Ethiopia. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ergeyga Maraykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman uu soo hadal qaaday wararka sheegaya diyaaradaha droniska ee dalka Turkiga oo hubaysan in lagu isticmaalay dagaalada Ethiopia ka dhacaya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda Turkiga ayaa dhankiisa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington sida aysan arrintaasi ugu qanacsanayn ay ku soo gudbisay dhowr shir, halka wakaaladdu ay sheegtay in militariga Ethiopia iyo dowladduba aanay ka soo jawaabin codsi arrintaasi dhankooda ay doonayeen in looga jawaabo. Turkiga ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu dhowr jeer uu horey kaga iibiyay dalal badan oo qaaradda Yurub, Afrika iyo Aasiyaba ku yaala, waxaana gaashaanku u daruuray dhaleecaynta ah in dalkaasi oo xasilooni darro ka abuuraya qaar ka mid ah waddamada gobolka, gaar ahaan Afrika. diyaaraddan awood buuxda ayay leeyihiin. marka la eego diyaaraddan, ciidamada dowladda Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay ku wareysatay meel ku dhow magaalada Gasheena oo ah magaalo ku taala buur dhinaceeda ee jiidda hore ee dagaalka. waxay sheegeen in guulaha dhowaan ay ka gaartay dagaaladaasi ay yimaadeen kadib markii taakula isdaba jooga ay ka heleen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duqeymaha lagu bartilmaamaysanaya saldhigga Tigreega. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabinaysa in wariyaasheeda ay soo arkeen taangiyo la burburiyey iyo gawaari qafilan oo lidka diyaaradaha gebi ahaanba lagu garaacay, taasi oo lagu warramayo in ay sabab u noqotay burburka xooggan iyo wacdaraha diyaaradaha droniska ay ka fuliyeen waqooyiga Ethiopia.